oo shacabka Soomaaliyeed badda ku tuuray ay ciidanka booliska dawladda federaalka Soomaaliya ay soo qabteen meeshaasna waxa ka cad cadowga inuu dabar go'ay burburay jabay shacabka Soomaaliyeed ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabkii inay iska bahaysteen cadowgaas kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano inay iska bahaysteen way caddahay waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku nool say ugu hiiliyeen amniga cadowga ka hiiliyeen burcadiineedka ka hiiliyeen nabad diidka ka hiiliyeen u hiiliyeen nabadda iyo qarnimada Soomaaliya u hiiliyeen oo mahadcelinaynaa codka wasaaradda amniga ku hadlayo shacabka gobolka Banaadir degan in badan waxaan ku celcelinaa waa u mahadcelinaa kooxdaas ma aha koox diin asal iyo raad ku leh koox qarnimada Soomaaliyeed iyo amniga iyo dawladnimadeena diidan fikir takfiiri ah oo xaq jirnimo ah soo wadanka ku soo guuriyay laakiin waxa ugu mahadcelinaa shacabka iyo ciidanka laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta gobolka Banaadir anoo codka wasaaradda ku hadlaayo anoo codka wasiir ku hadlaayo waa u mahadcelinaa cadowga say u soo qabteen say u soo abjareen cadowgii ee maanta markii la baaray bambadii uu ku tuuray shacabka Soomaaliyeed dhaxdeeda isgowska bakaaraha ay ku tuuray laga helay gacantiisii astaantii bambada meeshii uu surtay laga helay astaantii bambada waxa uu sheegaa kooxda burcadiineedka gobolka Banaadir si joogo wallahi maalin walba saasaan li soo qabanaa hadda dawladnimada iyo qarannimada iyo astaanta Soomaaliyeed inaa burbursiin dabacsantiin meel baa gashiin say ciidankan soo qabteen aan li soo qabanaa Abdullaahi raali ka noqdo ciidanka waxa uu mahadcelinaa hir iyo habeen soo jeedo inay gacan bir ku qabtaan cadowgaas waa u mahadcelinaa ciidanka iyo shacabkana waxaan leeyahay ciidanka waxaa tihiin kabaha shacabka ha loo dhimriyo shacabka ha loo hiiliyo ha laga hiiliyo kooxdaas qaarkood cadowga ku dhex jira shacabka Soomaaliyeed ha laga hiiliyo shacabka ha loo hiiliyo cadowgina waa u jeedin astaanta kale ku taalo marka la sii baaray dhaawaca ku taalo uu yiri hadalla qaldan ku sheegay markii dambe uu isaxay hadduu Ilaahay raali ka noqdo cadow walba oo ummadda inuu dabar gooyla u baahna saana u soo qabanayna hadduu Ilaahay raali ka noqdo ninkii waxaa la yiri ninkii qeybkiis loo xiro soo qoys ku tusaale qaata ciidanka amniga maalin walba say u soo qabanaya cadowga ha lagu tusaale qaato meel walba ay gashiin waa laga dabagalaa dalkan Soomaali baa leh dalkan dawlad baa leh inuu fikir takfiiri ay cadowga uu wadan ku sii jiro lagama yaabo hadduu Ilaahay raali ka noqdo intuu wiil tuuto wato astaanta qaranka ka muuqato wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum warahmatullahi in badan ayaa degan jirtay in bombooyin la soo tuuro ama arki hooyaal la soo tuuro ama la soo qoro say idinkaga soo gashay in aad soo qabataan bamba laga tuurayo bakaaraha gudaheeda waxaa hiiliyey shacabka Soomaaliyeed ka hiiliyey cadowga arkay inay yihiin kooxdaas koox nabadiida burcadiineeda diinta ku been abuurnayaan shacabkiyaa fahmay ciidanka amniga waxa uu hiiliyey inuu u fududaato inay soo qabtaan cadowga shacabka hiiliya ka hiiliya cadowga qaabkee lagu caddayn karaa daawayaal baa ku daawanaya telefishinada kaa daawanaya in asaga uu ka dambeeyey in bambadii uu way caddahay wax muuqdo waaye gacantiisa meel la saaray qalab oo maaragtay elektroniga oo horumar ah oo dawladda ay suubisay amniga ay suubiyeen tiya muuqato ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri yaa ayyuhalladina aamanu in jaa'akum faasiqun binabiyyin fatabayyanu qofa caddayn haynin meeshana soo saarno ilaahay ka baqayna ma jirto ninkan gacantiisa waxa laga helay markii laga helay electronic la saaray baarista la baaray bambadi uu tuuray ayaa laga helay gacanta garabkiisana waxa laga helay oo suunkii u surtayna bambadi baa laga helay oo surneed astaanta waa inoo muuqataa qof ama sabideena ma jirto adiga wariyaanka ku soo qabanaa ku dhiinada ku dada sabideeno shabaab ta kaalimo bambadii uu tuuray ma jira khasaaro ha khasaaro geysto jira dad dhintay kuwa dhaawacmay wax la wada ogyahay waxaan qarnayna ma khasaaraha ku leeyahay waxa ku dhintay laba ruux ku dhimatay saddex ruuxna ku dhaawacantay wax la qarnay ma wax muuqdo waa ninka wuxuu geystay cadowga wuxuu geystay wax muuqdo waa laakiin nin walba oo damacsan suuqa bakaaraha iyo gobolka Banaadir meel ka mid ah inaa dib u geysto shacabka Soomaaliyeed wallahi ka lagu soo qoonaa